السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان أصحاب تلك نجد دعوانيسه ميل والبو أشوفتان يسوي البه ومقال كيجو ومركا إدين سو قاريبا وحندون يا إن المقال كان أوجا حضله أرين رنتي دد بدن وإدين كإدين كمدا أي آد ولا يابي دوران ومركا سي شوك إدين كنا قنكرتا وحن مرة بدن إدين شيء إن دالك الصومالية يدتك الصوماليات با سي وين مركا سي لوجو سو دولي ummadda yadiina ay aad mashquul ugu tahay waxyaalaha aan markaasi muhiim ahayn waxaan doonayaa marka inaan muuqaalkan bal maanta aan oga hadlo oo aynu bal ku dul istaagno report markaasi ay qortay kaniisad kamid ah kuwa sida weyn markaasi oga shaqeysta gudaha dalka Soomaaliya oo ummadda Soomaaliyeed u gaalaysiya ama Kristaan oga dhiga report ay markaasi ay qoreen reportkaas ay ku sheegayaan in ilaa 1500 oo qof oo Soomaaliyeed ay aagaga magaalada Muqdisho ay markaasi ay ka gaalaysiiyeen iyo in ay jiraan kaniisado dhulka hoostooda ku yaala oo ay dadkaasi ay wax ku caabudaan reportkaasi ayaynu meel badan ka istaagi doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan iyo walba muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba waa 17 Agoosto 2025 waana markii labaad oo aynu maanta hawada ku kulmayno waxaan mar kale idin xasuusinayaa aad ku cusubtiin channelka Xuseen Jamac TV inaad markaa subscribe aad saarataan si aad ula socotaan muuqaalada ugu dambeeya oo halkaan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad u mahadsantihiin haddii aynu bilowno reportka aan doonayo inaan muuqaalkan aan bal ku soo gudbiyo isla markaasna bal aynu meelo kala duwan uga istaagno waa reportkan in hor yaala oo ciwaan looga dhigay u adeegida kaniisadaha qarsoon ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya waa ciwaanku waa sida waxa loo adeegayaa kaniisadaha qarsoon ee ku dhex yaala gudaha dalka Soomaaliya waxa reportkan qoray hay'ad magaceeda la yiraahdo ICC oo loo soo gaabiyay International Church Concerned marka ICC du waa hay'ad taageerta waana kaniisad waana hay'ad taageerta dhaqaalana ku bixisa dadka Soomaalida ah ee diinta Kirishtaanka haysta ee ku dhaxnool gudaha dalka Soomaaliya waxay marka hay'adaanu ay walaac ka muujinaysaa dadkaas Masiixiyiinta ee Soomaaliya ku sugan sida ay markaasi xaaladoodu ay tahay waxayna leeyihiin Soomaaliya waa mid kamid ah dalalka ugu colaada badan ama ay ka jirto jawiga colaada ugu badan markaasi leh markaynu ka hadlayno adduunka waliba dhanka dadka aaminsan diinta Masiixiga ah ay leeyihiin hay'adan ayaa waxay leedahay waxaan si aan sharqan lahayn oo waliba taxadar leh aan ola kulanay bay leeyihiin Masiixiyiinta ku sugan xaalad ay markaasi ku tilmaameen mid mugdi ah ama hoos u hareeyay ayaan la kulanay bay leeyihiin xilliin waxaan la kulanay dad Masiixiyiin ah oo xaalad adag oo mugdi ah markaasi ku sugan waxay yiraahdeen hadii dadkan la ogaado inay Masiixiyiin yihiin waxay arintaasi horseedi kartaa barakicin qasab ah xabsi in la dhigo iyo waliba xataa in markaasi la dilo hay'adan waxay sheegtay inay dadka marka xaaladda ku sugan ay markaasi caawiso waxayna sheegtay inay dhowr nooc oo kala duwan ay markaasi u caawiso haddaba sidee u caawisaa maxayse ku caawisaa ayaynu bal fiirinaynaa markaana waxay dadkan ka caawiyaan markaasi Masiixiga ama Kirishtaanka inay wax walba oo resource ah oo ay u baahan yihiin inay markaasi ay siiyaan waxyaalaha ay siiyaan oo resource-ka ah ayaa markaasi waxa kamid ah sida inay siiyaan Bible-lada ay ku caabudayaan sida inay u diyaariyaan ama u qalabeeyaan meelaha kaniisadaha ee dhulka hoostooda ku jira oo markaasi ay isugu tagaan iyo waxyaalo walba oo agab ah oo ku saabsan diinta markaasi lagu shubay dadka Soomaaliyeed ee jahliga ah ay markaasi ka caawiyaan waxay kale hay'adani ay sheeganaysaa inay dadkaani ay markaasi siiso guryo iyo meel ay ku noolaadaan hadii markaasi ay u baahdaan ama ay dhibaato la soo daristo waan caawinaa oo guryo iyo waxaayo dhan ayaynu siinaa ay hay'adanu sheeganaysaa waxay hay'adanu ay sheegtay inay la kulantay dad Soomaaliyeed oo Masiixi ah oo gudaha dalka Soomaaliya ku nool isla markaana waxay u xaqiijiyeen inay gaarayaan ilaa 1500 oo qof oo marka laga hadlayo aagaga magaalada Muqdisho waa sidii hadalka markaasi u dhigayaan
marka waxaad qiyaastaa dii aagaga magaalada Muqdisho inta ku nooshahay dalka oo dhan imisa ku nool sidoo kale imisa ayay intaasi ay si fasahaadin karayaan dadkaasi iyo waliba hay'adaha noocan sheekooyinka ay hay'adani ay soo daliishatay oo ay ku faanayso ayaa waxa kamid ah in 2023 uu nin baadari ah oo Soomaali ah isla markaasna kaniisad dhulka hoosteeda ku jirta mas'uul ka ahaa ama hoggaan ka ahaa inay markaas kooxda al-shabaab inta ogaatay ay cayrsatay oo markaasi uu meeshii ka soo cararay waxay hay'adanu ay leedahay ninkaas iyo qoyskiisa oo aan caawinay ayaan waxaynu siinay lacag gaaraysa ilaa $4,000 oo dollarka Mareykanka ah markii aan report-kan meel kala duwan aan ka istaagay ilaa 4 qodob ayaa iiga soo baxday xogta ku qoran report-kan iyo waxyaalaha aynu markaa ka fahmi karno waxay marka hore hay'adan iyo qolooyinkan Christianka ah ay doonayaan in dad badan oo Soomaaliyeed oo baahan ay baahidooda ka faa'iideystaan isla markaasna ay gaalaysiiyaan ayagoo u ballan qaadaya inay dhaqaale iyo nolol iyo raashin iyo waliba ijaar inay ka bixinayaan marka waana qaab ay caan ku yihiin kooxahan missionaries-ka ah ee diinta Masiixiga faafiya ee dalka Western-ka markaasi jooga qodobka labaad oo meeshan iiga soo baxaya oo ama aynu ka fahmi karno ayaa wuxuu noqonayaa in Soomaaliya hadda ay ka jiraan kaniisado badan laakiin dhulka hoostooda ku jira ee aan baahayn kuwa sida caadiga ah ee guryaha markaasi loo dhiso waana arrin cusub oo inagu cusub haddii ay markaa kaniisado nooca ay jiraan waxyaalo badan ayaa jira oo dhulka hoostiisa laga sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay oo aysan ummadayda markaa aysan ka warqabin waana arrimo runtii aad iyo aad qatartooda u leh waxa kale oo meeshan iiga muuqata in organization kan ICC la yiraahdo iyo kuwa la midka ah ay doonayaan in dadka Soomaaliyeed ay dalkooda ay nacsiyaan ayagoo marka hore ku talaalaya cudur kadibna cudurkaasi u isticmaalaya si ay ummadanada u nacsiyaan dalkooda cudurka waxaan ka wadaa marka hore qofka waa la gaalaysiinaya isla diintii qaldaneed ee lagu shubay darteed baa loo leeyahay dalkan kuma noolaan kartid oo waa lagu dilayaa kadibna dalkii ayaa dadkii laga daabulaya marka waa qaacido kale markii aad dhinaca ka istaagto in marka hore dadka la gaalaysiiyo kadibna isla diintii qaldaneed ee lagu shubay darteed in la yiraahdo dalkii nooga soo carar ugu dambeyn waxyaalaha ku dhex jira ee report-kan oo la yaab kale ayaa waxa kamid ah inay jiraan dad aad u tiro badan oo Soomaaliyeed oo dalka Kenya ay hay'adani ay ku hayso oo qaxootiyo iyo meel xarumo ah ku jira isla markaasna gaala ah qofkii ay doonayaan marka inay ka wadaan dalkana meelaha ugu horeyso la geenayo waa xarumaha ay ku leeyihiin dalka Kenya qaasatan xarunta ay ku leeyihiin magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya marka waa barakicin kale iyo waliba in dadkii Soomaaliyeed oo gaala ah markaas laga daabusho gudaha dalka Soomaaliya waa report markii aad fiiriso uu qalbigaagu aad u gariirayo laakiin ku sheegaya waxyaalo aad u tiro badan oo dadka iyagu ay mashquul ka yihiin marar badanna waxaan idinku eri ummadan waa lagu soo duulay iyo diintan cid walba oo Soomaaliyeedna waxa waajib ku ah inay ka qayb qaadato mashruuciyada noocan ah ee gudaha dalka Soomaaliya laga wado intaas aan muuqaalkan ku soo koobaya dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay si aan nabadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh